waayo ciqaabtiisu way weyn tahay waana dembi halis ah oo lagu halaagsamo wuxuu yidhi allah kor ahaye ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi annisaa suuradda annisaa aayadda 110 allah ma dhaafo oo ma cafiyo dembiga in wax loo cid iyo shariik yeelo macnaha waa uma dhaafo addoon dhinta isagoo ku jira shirki dembiga haddiina aan loo dembi dhaafayn qofkii ku dhinta shirki waxaa qof waliba saaran inuu ka taxadiro shirkiga oo iska jiro waayo dembi lamad ah ma uu jiro sidaas awgeed buu allah u yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wuxuuna u dhaafaa wixii ka sokeeya oo ka yar ciddii uu doono waxaana ku soo arooray saxiixa in nebiga sala allahu calayhi wasalam la siiyey 3 waxyaalood waxaana ka mid ah wagafara liman lam yushrik biاllahi min ummatihi shayئa almuqximaat ay alkabaa'ir inuu ilaahay u dhaafay ciddii ka mid ah ummatu maxamed aan u sharig yeelin allah waxna wuxuu u dhaafay dembiyada waaweyn ee kale oo dhan qaala abu nawaas ashaacir ta'amal fii nabaati alardi wandur ilaa aathaari maa facala almaliiku bal feeri arlada iyo waxa ka soo baxa oo eeg waxa uu ilaahay sameeyey ilaa uu ku soo gabagabeeyey markii waxaasi aad aragtid uunka ilaahay baad garanaysaa biana allaha laysa lahu shariik inuu ilaahay shariik lahayn ibn almuctazina wuxuu yidhi fayaa cajaban kayfa yucsa ilaahu am kayfa yajxaduhu ljaaxid sayb ilaahay loo diidaa wa fii kulli shayin lahu aaya isagoo wax walba aayad iyo calaamad muujinaysa ay jiraan inuu waaxid yahay ibn alqayimna wuxuu yidhi iska jir shirkiga daahirka ah aan ilaahay marnaba aqbalin oo ah inaad ilaahay u yeesha dhig wuxuu ahaadaba ama dhagax ama aadami adigoo baryaya ama rajaynaya ama ka cabsanaya ama u jecel sida jeceylka ilahay ikhwaani waxaa lala soo diray rasuulkeennii moxamed sala allahu calayhi wasalam nuur bidhaamaya iyo iftiin birqaya uu ku ifiyey waddada kuna caddeeyey jidka wuxuu ilaahay kaga daahiriyey jasiiradda carabta qurankee shirkiga iyo qaabkii darnaa ee sanam caabudka waxaa jiray jasiiradda sanamo badan maka dusheeda sare waxaa ahaa sanamka hubal kacbadana waxaa hareeraheeda ahaa 360 sanam waxaa gacantiisa ku duray oo diiday oo u dhammeeyey sanam caabudka gacaalkeenii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka uu soo galay kacbada maalintii furashada maka